rabitaanka shacbiga ee Soomaaliyeed oo aan golahan ku metelno waa laga maarmaan waa waajib xildhibaani ah waajib muwaadin ah waajib haddii la ku raayahay oo diini ah weeyaan saadaradeed waxaa la socotaa mudanayaal in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo bishii 6 December 2017 magaalada Jerusalem uu aqoonsaday in ay tahay magaalo madaxda Israa'iil go'aankiisaas oo qalaam rogay go'aanadii wadar ogolka ahaa ee caalamka isku raacay oo muddo 50 sano soo jiray 1967 ilaa iyo 2017 magaalada Jerusalem kala barkeeda waxaa xoog hubeysan ku qabsatay Israa'iil dagaalkii 1967 sanadkii 1980 Israa'iil waxay ansixisay sharci ay ku cadeynayso in ay magaaladaasi gebi ahaanteeda ka mid tahay dalkeeda taasoo xadgudub toos ah ku ah qawaaniinta caalamiga ah hase yeeshee shacbiga Falastiin waxay aaminsan yihiin bariga magaalada Jerusalem inay tahay magaalo madaxda dowladooda tan iyo 1967 qaraaro fara badan oo u abaaran xalinta iyo badbaadinta xaaladaha murugaysan ee magaaladaasi bay qaramaha midoobay iyo hay'adaheeda ka soo saareen waxaan marka halkan ka soo qaaday dhowr iyo 10 qaraar oo ay ku gaartay ay qaramaha midoobay ay ku gaartay arrimahaasi taasi waxaan uga gol leeyahay in xildhibaanada xogaa anagoo dhamaanteen aan maskaxdeena xogaa cusboonaysiino xaaladan oo nagu soo food yeelatay si oo martaa go'aanada ugu habboon aan u qaadano qaraarka lambarkiisu yahay 242 November 1967 golaha ammaanku wuxuu qaraarkani wadar ogol ku go'aamiyay in Israa'iil ay ciidamadeeda qalabka sida kala baxdo dhulka Falastiin ay xoog ku qabsatay dalka dagaalkii 1967 qaraarka 250 oo soo baxay 27 Abriil 1968 wuxuu golaha ammaanka ku go'aamiyay in Israa'iil aanay dowlad ku sameyn military ku qaban magaalada Jerusalem qaraarka 251 labadii Maajo 1968 golaha wuxuu Israa'iil ku cambaareeyay dowladtusadka ay ku qabatay magaalada Jerusalem oo ay dhagna u dhigin qaraarkii golaha ammaanka oo ay ku xadgudubtay qaraarka golaha ammaanka soo saaray Abriil 68 qaraarka 252 Maajo 1968 golaha wuxuu Israa'iil ka codsaday in ay joojiso howlgallada ay ku wado Jerusalem wuxuu kaloo goluhu cambaareeyay kana soo horjeeday wuxuuna ka soo horjeedaa dhul kastoo ay xoog hubeysan iyo xadgudub ku beelaysato goluhu wuxuu Israa'iil faray in ay ka joogsato oo aanay qaadin tallaabo dambe oo wax ka bedel oo abaaran maqaamka magaaladaasi qaraarka 267 oo soo baxay 3 Luulyo 1969 wuxuu golaha dib u ayiday qaraarkiisa lambar 252 wuxuuna ku adkeeyay in aan marna la ogolaan karin in la yeesho dhul lagu qabsaday xoog military qaraarka lambarkiisu 271 oo soo baxay 15 September 1969 golaha wuxuu Israa'iil ku cambaareeyay dabkii la qabadsiiyay masaajid al-Aqsa Sharif oo khasaarooyin geystay dhismahaasi oo ay Israa'iil xoog ku haysato waxaa la faray in Israa'iil ay ilaaliso ahkaamta ku xusan ahdiga Geneva oo aysan hor istaagin gacan ku haynta iyo howlaha dayactirida golaha sare ee muslimiinta Jerusalem u qorshaysan howlahoodana ka mid yihiin gacan ku haynta iyo dayactirida dhismooyinka islaamka oo leh islaamka oo muqaddas u ah dadka muslimiinta ah ee ku yaala magaaladaasi Jerusalem qaraarka 298 oo soo baxay 25 September 1971 wuxuu si cad oo aan caadna saarneen u qeexay
in uu sharci darro yahay wax ka beddelka milkiyadeed kasta oo ay ku samayso Jerusalem oo ay ka mid yihiin dhulka boobka lagu milkiyad guursaday. qaraarka lambar 465 kowdii Maarso 1980 wuxuu golaha faray Israa'iil in ay joojiso qorshaha ay ku wado dhismooyinka beeraysiga ah oo ay ku dagaamaysanayso dhulkii ay xooga ku qabsatay dagaalkii 1967 oo magaalada Jerusalem ay ka mid tahay. golaha wuxuu kaloo ka codsaday in ay dhismooyinka ay deegaanadaasi ka dhisaysana ay ka dudumiso. qaraarka lambarkiisu 476 ee soo baxay 30kii golaha ammaanka ka soo baxay 30kii Juun 1980 golaha ammaanka qaramaha midoobay wuxuu dib u ayiday in loo baahan yahay in wax laga qabto joojinta beelaysiga dheeraaday oo ay Israa'iil xooga ku haysato dhulka Carabta ah tan iyo 1967 wuxuuna golaha dib ugu adkaystay fal kasta oo wax ka bedel milkiyadeed lagu sameeyo magaalada Jerusalem in uu yahay wax kama jiraan waana in dib looga noqdaa. qaraarka lambarkiisu yahay 478 ee soo baxay 20kii Agoosto 1980 golaha amniga wuxuu si adag u cambaareeyay sharci Israa'iil ay ansixisay kaas oo wax ka bedel ku sameeyay maqaamka Jerusalem. qaraarkan wuxuu dhammaan dowladaha safaarado ama xarumo diblomaasi ah kula Jerusalem uu ka codsaday in ay ugu baaqday golaha ugu baaqay in ay safaaradahooda kala soo baxaan magaaladaas. qaraarka 672 oo soo baxay 12kii Oktoobar 1990 golaha ammaanka wuxuu cod dheer ku sheegay dareenkiisa ku saabsan adeegsiga cunfiga ah ama gacan ku hadalka loo yaqaano oo sababay in ay ku geeriyoodaan in ka badan 20 qof oo Falastiini rayid ah. qaraarka waxaa kaloo lagu cambaareeyay falal dambiyeedka cunfiga ah ee ay ku kacaan ciidamada amniga Israa'iil wuxuuna Israa'iil ku tilmaamay in ay tahay mid dhulka xoog sharci darro ah ku haysato. qaraarka lambarkiisu yahay 1073 oo soo baxay 28kii Sebtembar 1996 golaha wuxuu welwel ka muujiyay arrimaha la xiriira Israa'iil oo furtay xaluulad ama tunnel dhulka hoostiisa ah ee u dhow Masjid al-Aqsa oo dad badan oo rayid ah ay ku dhinteen. wuxuuna ku baaqay in la xaqiijiyo ilaalinta amniga iyo badbaadinta muwaadiniinta Falastiiniyiinta rayidka ah. qaraarka lambarkiisu yahay 1322 oo soo baxay 7 Oktoobar 2000 wuxuu si xoog leh u cambaareeyay booqashada hogaamiyaha mucaaradka Ariel Sharon ku tagay Masjid al-Aqsa iyo qalaalasihii cunfiga weheliyay ee halkaasi iyo meelo kala badan ee muqaddas u ah muslimiinta ay ka dhaceen sababayna dhimasho in ka badan 80 qof oo Falastiiniyiin ah. qaraarka 1397 oo soo baxay 12kii Maarso 2002 golaha wuxuu hogaamiyayaasha Falastiin iyo Israa'iil uga baaqay inay dib ugu laabtaan geedi socodkii nabadda iyo wada xaajoodkii u abaarnaa xal raadinta siyaasadeed. qaraarka lambarkiisu yahay 2334 oo soo baxay 23kii Diseembar 2016 wuxuu cambaareeyay dhismooyinka beelaysiga ay Israa'iil ku dagaamaysanayso dhulalkii ay xoogga ku qabsatay dagaalkii 1967 oo ay bariga Jerusalem ay ka mid tahay. golaha amniga qaramaha midoobay waxay hoosta ka xariiqeen in aysan aqoonsanayn wax ka bedel kastoo lagu sameeyo jiidimaha soohdimihii hore oo jiray dagaalkii 1967 ka hor. wuxuuna si cad u sheegay in joojinta dhammaan howlgallada Israa'iil ay ka wado dhismooyinka dagaamaysiga ah
waxay dan lagama maarmaan u tahay badbaadinta jirsiinta xal dhismeedka ee laba dowladoodka ama two state solution loo yaqaano. mudanayaal taasi waxay ahayd 15 qaraar oo 50 sano gudahooda la soo saaray. sidoo kale waxaa jira 14 qaraaro kale oo ay soo saareen kulanka guud ee qaramaha midoobay. kuwan waxay ahaayeen kuwa uu soo saaray golaha amniga ee qaramaha midoobay. waxaa kaloo jira dhowr iyo 10 kale oo ayagana ay soo saareen golaha kulanka guud ee golaha qaramaha midoobay ka soo baxay. mudanayaal waxaa intaas aan uga gol lahaa in xildhibaanada ay marta xoogaa dib u eegaan taariikhdan ay sii ogaadaan waxyaabaha ay soo martay 50 sanadood. aniguse waxaan qabaa in go-aankan uu gaaray Donald Trump ama dowladda Mareykanka ay gaartay in uu anigu Soomaali ahaan waxaan qabnaa xiriirkeena Soomaaliya oo aan leenahay dowladda Mareykanka ka diblomaasiga iskaashiga wada shaqeynta naga dhaxeeya in la xoojiyo mustaqbalkan uu sii jiro waa arrin ay naga go'an tahay inaan sii ahaato. hase yeeshee go-aanka kani waxaan u arkaa in dowladda Mareykanka ay go-aankan halis ku yahay heshiiskii nabadda lagu raadinayay oo martaa ay halis gelinayo nabad doonkii oo laga raadinayo in laga dhexdhexaadsiiyo Israa'iil iyo Falastiin oo halis ku noqonayo in uu soo ibaabo. wuxuu kaloo halis ku yahay gobolka oo dhan siyaasadda gobolkaas oo dhan amnigiisii iyo xasilooni siyaasadiisa wuxuu go-aankan ku yahay mid halis ku ah ayaan u arkaa. waxaa kaloo u arkaa in uu hoos u dhigayo raalli ahaad nidaam. waxaa kaloo u arkaa in arrinkani go-aankaas uu qaaday inuu hoos u dhigayo kalsoonidii lagu qabay dowladda Mareykanka in ay hogaamiso dhexdhexaadintii nabaddoonka ahaa oo lagu dhexdhexaadinayay Falastiin iyo Israa'iil. waxaan qabaa in si buuxda aan ugu baaqno dowladda Mareykanka inay ka noqoto go-aankaas ay gaartay maadaama uu arrintaasi ka soo horjeedo dhammaan danaha muslimiinta iyo shacbiga Falastiin toosa uga soo horjeedo kana soo horjeedo qawaaniinta caalamiga ah. saa daraadeed waxaan mudanayaal xildhibaanada sharafta leh cashay raalli ahow mudanayaal waxaan soo jeedinayaa in aan u xilsaarno guddigeena arrimaha dibadda. casha raalli ahowda see waa idinka waxyar mudanayaal waxaan ugu dambeyntii soo jeedinayaa haddii adiga ogolaataan in guddiga arrimaha dibadda aan u xilsaarno inay noo soo diyaariyaan qaraar arrimahan ku saabsan oo ay noo soo habeeyaan kabacdina aan ka doodno aan halkana ka soo saarno wixii tabar aan samayno wixii kale aaraacana markaas aan isdhaafsano qaraarka markana loo keeno haddaad iga ogolaataan. mahadsanidin. guddiga arrimaha dibadda waxaanu siinaynaa fadhiga soo socda guddiga arrimaha dibadda gudoomiyaha Mamiin Maqlaad waxaan ka codsanaynaa in ay maalin gudaheed noogu keenaan fadhiga soo socda noo keenaan qaraarkaasi si xildhibaanada ay uga doodaan codka shacbigana aan maqashiino iyo wixii tallaabooyin aan ka qaadi karno. aad iyo aad baad u mahadsantihiin.